maamulka degmadaasi Calaf Weyn oo horkacayo maayirka degmadaasi Calaf Weyn mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda maxalliga ah ee Taakulo odayaasha iyo waxgaradka deegaanka Dhariyaxye ayaa si rasmi ah waxay ugu dhaxdhigeen xarun caafimaad oo dadka deegaankaasi ay baahi weyn u qabeen oo isla markaasina ay hore u dalbadeen dadka deegaankaasi wareen waxa xaruntani caafimaad iyo faa'iidada ay deegaankani u soo kordhinayso halkaasi ka hadlay oo ka sheegay maayirka degmadaasi Calaf Weyn ku xigeenka degmadaasi iyo waliba mas'uuliyiin kale oo ka tirsan odayaasha iyo waxgaradka deegaanka Dhariyaxye ee xaruntani caafimaad laga dhigay Czech Republic oo hore uga dhisay degmadan deegaankan degmada Calaf oo dhan bay ku deeqday deegaankan Dhariyaxye ugu deeqday aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa iskuulkii hore u dhisay aad ka quruxda badnaa ayna ka faa'iideysteen caruurtii deegaankan joogtay sida la hore loo sheegay mahad celinta labaadna waxa leeyahay ayada Taakulo oo iyadu ka hawl gashay in Czech Republic halka kan wax ka qabto runtii aan u mahad celinaynaa Czech Republic oo runtii aan taagnaa maalintii laba qof cadaanka ay mareysay ee iskuulka furitaankiisa codsigii maalintan codsanay bay ahayd in MCH looga dhiso aad baan uga mahad celinaynaa haddii aqbaleen oo inaga yeeleen joognaa Dhariyaxye oo laga dhagax dhigayo MCH ay bixinayso Czech Republic ayna ka soo qaaday Taakulo ay ka soo qaaday oo keentay deegaanka waxaan u mahad celinaynaa Czech Republic waxaan kula mahad celinaynaa hay'adda Taakulo waxaan ka mahad celinaynaa dhismaha maanta xarun caafimaad Dhariyaxye loo helgelinayo ismaanaan lahayn iskuulka day waxba la idinku darayaa laakiin alxamdulillah geestiisa waxa isna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda Taakulo Somaliland ugu horeeyo Cumar Jaamac Faarax idin la joognay labadii sano u dambeeyay oo aan iskuul idin dhisnay waxaan idin keenay tiro fara badan oo raashin ah oo hay'adda WFP MCH kiba maantana la idin dhagax dhigayaa alxamdulillah waxay ka mid yihiin ahmiyadka ay dawladda Somaliland siiso degmooyinka iyo tuulooyinka annagu siyaasadda dawladdaanu ku shaqaynaa iyaga nahaga iyaga baahiyaa noo sheega iskuulka wasaaradda waxbarashada noo sheegtay MCH ka wasaaradda caafimaadka waa ku jiray qorshaheedii buu ahaa waxaanu ku shaqaynaynaa mar walba siyaasadda dawladda oo ah in adeega caafimaadku gaadho tuulooyinka fogfog Dhariyaxyena ka mid bay tahay sidaas ayaanu ku soo gaarsiineen maanta la dhagax dhigo MCH dhallaanka iyo haweenka ah Axmed Xaadal Cable TV